Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaad School Bari Online School Farqoxin Journal. Maanta waxaanu qaadan doonaa xarafka dha. Waxaa noo socday xarfaha cursive writing-ka loo yaqaano isku xirkooda hadduu ay yiraahdo. Maanta waxaanu qoraynaa xarafka dha. Dha markaan hore soo qaadeen xarufta waxay ka tirsaneyd xarufta loo yaqaano madaxleyda. Hay'ada hab noocaas loo dhigaa. Aan ku xirna marka dha ay noqonaysaa. Kale aan ku xirno dhaa. Lagu xiray lagu xiray laba d laba ku xir dhoo dha lagu xiray laba waxay noqonaysaa dhow. Waayaa marka erey ahaan aan ka dhigno marka dhada sadarkaas laga soo bilaabo saddexaad ilaa kan labaad kan afar koowaad la geenaa meesha loo soo celinaa haadaan ku xiraynaa aadaan ku sii xirno aada kale aan ku xirno kadib waxaan ku xiraynaa raadaan soo aragnay dhaar ay noqonaysaa. Dha iyo laba waxaan ku xiraynaa fa weli ma gaarin dheef ay noqonaysaa ayada. Fa'dan ayada laba qayb oo ku jirta qaybta mar waxaa lagu daraa qaybaha madaxleyda loo yaqaano marna waxaa lagu daraa qaybaha loo yaqaano lugleyda. Sababtaas waxay tahay mar waxay ka soo bilaabataa korkaas marna waxay ka bilaabataa qaybtaas hoose aada. Marka aan ku darayna qaybaha hoose waa markii ay xarafka ugu dambeyso waxaan ku darayna lugleyda markii ayada laga bilaabaan waxaan ku darayna qaybaha madaxleyda. Dha iyo labii la ku xir dhiil dha iyo laba ba ku xir dhoob ay noqonaysaa. Iyo labo dha iyo laba ina dhuun waxaan dhigaynaa hal maama dhar aadan lahayn aadan lahayn
dhaxan, 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 kama cesho, cesho, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.